waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan tacsi u diro cid allaale ciddii ku geeriyootay wixii baydhabo ka dhacay saakay wax aad iyo aad looga murugoodo looga xumaado waayo war lagu farxa ma aha walaalaha reer baydhabana waxaan leenahay horaa u soo aragteen waa taqaanaan idinkuma cusba colaad midaad adigu isku geysateen iyo mid kor idinkaga timid intaba waa soo aragteen qoraga dhulka dhiga oo gogasha isugu imaada oo iswarsada oo waxa idinka qaldan iska toosiya oo ninkaan idin anfacaynin yaa raalli ahaw dhaha ka idin anfacaya haysta hadduu joogo hadduu maqan yahay keensada fursad ha la siiyo dadka waana aaminsanahay dadku in aanay cadaawad qabin dhib qabin siyaasad waay wax kale isku ma dadku waa qaraabo baydhabo dadka degan waa qaraabo waa ehel waa wiil iyo abtigiis waa maxaan ku raahdaa oday iyo inankiis yacni wax dhiba oo meesha ka jira ma jiraan waxaan waa siyaasadda iyo dowladnimada daciifka naga noqoto sheegay oo dhisayno siyaasadda ha la dhowro madaxda jirta ha la dhowro kuwa hamiga la ha la dhowro dadkana ha loo turo dhacdadii saaka ka dhacday magaalada baydhabo oo runtii ugub nagu ahayd siday rabtaba ha ku timaado muddo badan oo bil gaaraysana aan ka shaqaynaynay waxaas iyo wax lamida inaysan ka dhicin koonfur galbeed oo cid kasta oo dadka reer koonfur galbeed ah ama dhaqan ha noqdo ama dhalinyaro ha noqoto ama aqoon-yahan ha noqdo ama ciidamada qalabka sida ha noqoto aan la wadaagnay dulqaad tiro badanna laga muujiyey ujeedka annagana uu ahaa muddadii inta aan joognay inaysan ilaahaybaa mahaddaas iska leh dadka magaalada baydhabo jooga iyo dadka reer koonfur galbeedba dhibaato argagixisada khawaarijta al-shabaab aan ahayn inaysan la kulmin marka dhacdadii saaka dhacday waa baari doonaa waana la xisaabtami doonaa cid kastoo samaysay laakiin aad iyo aad baan uga xumahay waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan tacsi u diro cid allaale ciddii ku geeriyootay dadkii ku dhintay allah u naxariisto samir iimaan allah ka siiya ehladii iyo dadkii reer koonfur galbeedba inta ku dhaawacantayna ilaahay ha u boogadhayo oo caafimaad ha siiyo intii dhibsatayna ilaahay intaan ha nooga reebo intaas kadib dadka reer koonfur galbeed waa dad nabadeed waxaan rabaa inaan baaq guud oo nabadeed diro